السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا لميل باجوكتان السيلة موقعين سوغاري كسودة برنامج gaar oo toddobaadkan idinka imaanay xiriyaha qaxootiga raab gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Barnaamijka waxaan marti inooga ah musharax xildhibaan Siyaad Tabane Aadan oo ah dhalinyarada ku wax bartay xiriyaha qaxootiga raab gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya sidoo kalena ku barbaartay. Haddii uu sheeciyay inuu yahay musharax u taagan xildhibaan mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed deegaanka maamul goboleedka Jubbaland. Mudane xildhibaan ku soo dhawaad hore telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV. هذا ما صنطه waa dhawaay mudane waxaad inoo sharaxdaa waa kuma Siyaad Tabane muxuu yahay xaguuna ka soo jeeda xaguuna ku barbaaray bal intaasi waxay rabaa u tataabo wallahi inuu Siyaad Tabane waa wiil dhalinyaro ah waa wiil Soomaaliyeed waa wiil maartay muddadii u badneed inta dadadiisa ay jirto ku soo qaatay xarooyinka maartay dhadhab waxaan xasuustaa xilligii aan qaxootiyaha dhadhab imaanayay waxaan ahay qof aad u daayar oo gacanta la jiidayo marka iyada ah xaaladda markaas lagu jiray waalidiintayda markaan ka wareystay iyo maartay aad xilli u adag ba ahayd xilli maartay qax iyo carar iyo cabsi fara badan ay jirtay iyo wadanka uu ka jiray ahayd anaga saad og tahay waxaan ka soo jeedaa beel inteeda badan maartay xoolo dhaqato ah 80% aan dhihi karaa dad xoolo maartay reemi ah yaan ka soo jeedaa noloshooda inta badan ku tirsan tahay maartay miiga waxaan ahayn dad maartay iska xoolo dhaqato oo looda iyo maartay duurkaas iskala maartay ku dhaqto markii uu dhacay dagaalkii ahliga ahaa ee sokeeye ee dhacay 1991kii waxaan qabsatay ka qoyskan ka soo jeedo ahaan gaar ahaan beesha aan ka soo jeedo dad maadaama ay reebaadiyo ah oo xoolo dhaqato u badan xoolihii gacanteena ka baxay marka taas marka waxaan ugu sababtay marka maxaan ugu qasabtay marka inaan xaraq qaxooti aan ku soo cararno oo halkaas aan ka soo nolol aan ka soo raadino marka anigana meeshaas aan ku soo barbaaray noloshayda inta badan aan ku soo qaatay aqoontayda heer waxbarasho heer primary secondary college maxalla universities iyo meelaha goobaha aan ka shaqeeyoba waxaan u shaqeeyay hay'ado fara badan oo kala duwan takhasusan aniga takhasuskayda waa macallinimo heer kala duwan oo macallinimo waan soo shaqeeyay macallin ahaa mas'uul macallin ahaa maamul iskuulan ahaa sanadooyin dhowr ah xafiisyo kala duwan oo xafiisyada bulshada arrimaha bulshada in badan ka shaqeeyay marka adiga muddadii u dambeysay hadda 15 sano waxaan ahaa nin u shaqeeyo u qaadima bulshada ku nool xarooyinka qaxootiga waxaan sidoo kale aan maarta ahaa hogaamiye dhalinyarada xarooyinka ku jira dhalinyarada hogaanka dhalinyarada xarooyinkan in badan ahaa oo ilaa saacadda hadda aan kula hadlayo aan ahay marka bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay qaxootinimada Ilaahay ka bixiyo maxaa kugu qasbay inaad noqoto imikan musharax walaal waa mahadsantahay Xasan aadan ka mahad celinaa su'aasha ay weydiisay waxyaabaha igu qasbay inaan u tartamo soo cararo xilka xildhibaannimo ee golaha shacabka dawladda federaalka waxaa kamid ah koow codsi iga yimaaday beeshayda iyo dhiirigelin badan oo aan ka helay dhalinyarada maartay wax baratay ee beeshayda waxaa kaloo kamid ah maasha Allah in baahiyaha jiro oo beesha ay u qabto maartay qof daacad ah in uu hogaankaas u qabto sidoo kale waxaan maartay aan ugu qasbay kalsoonidii aan ka helay beeshayda mise aan ku qabo beeshayda in maartay ay ugu aaminayso xil inta la eg sidoo kale waxaan ahay hogaamiye beeshan in badan u soo shaqeeyay oo la soo tijaabiyay oo guulo badan hore u soo hooyay waxaan aaminsanahay inaan ahay qof waxtar leh oo bulshada ay ku taqaanto wax qabad muuqta inuu mar walba uu maartay oo laga filan karno in wax qabad muuqta aan la imaado waxa kale oo maartay ugu qasbay markasta iyo xilli kastaba waxaan ahay qof jecel inaan maartay u hiiliyo u garab siiyo cadaaladda iyo sinaanta iyo wadajirka iyo midnimada marka arrimahaas ay ugu qasbay iyo waxa kale kamid waxa ugu qasbay oo kale waxaan aaminsanahay inaan ahay maartay qof gudani karo waajibaadka iyo mas'uuliyadda lagu aaminayo mise loo igmanayo
marka waxyaabahaas ugu qasbay ma sha Allah waa tahay mudane muxuu yahay waxyaabaha ku qorsheysan haddii aad kursiga ku guulaysato ad isleedahay waxa ugu horeeya aad u qabanaysa beeshaada maadaama aad tahay mid ka mid ah xildhibaanada hadda musharax u ah beelaha dega maamul goboleedka Jubbaland walaalo macaano waxyaabo badan ay qorsheysan hadduu alla ka raal noqdo insha Allah raxmaan aan rajaynayo in aan maartay aan si fiican uga soo dhalaalo waxa kamid ah koow inaan ka shaqeeyo midnimada iyo wadajirka beesha aan maartay aan matali doono labo waxaan maartay rajaynayaa hadduu alla idmo inaan ka furo xafiis si dhow oo la socon doono mas'uul warqabi doono baahiyaha beesha deegaanada ay degto saddex waxaan maartay iyo qorsheysan insha Allah raxmaan inaan u noqon doono beeshayda wakiil masaqareen dhab ah afar waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay ka noqdo inaan noqdo qof maartay dib u habeen ku sameeya xiriirka beeshayda ay leedahay madaxda wadanka ugu sareysa sida midka maartay madaxweynaha dawladda federaalka ha noqdo maartay madaxda ugu sareysa dawlad goboleedka sida Jubbaland ha noqdo maartay hoggaanka dhaqanka beelaha masqabaa'ilada Soomaaliyeed kuwooda aan maartay bahwadaaga nahay iyo kuwa maartay aan nahay oo wadaaga intaba sidoo kale waxaan maartay idina ii qorsheysan hadduu alla idmo inaan sameeyo shaqo abuur dhalinyarada aan u sameeyo insha Allah raxmaan sidoo kale waxa ii qorsheysan hadduu Ilaahay ka noqdo inaan wax ka qabto baahiyaha dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka iyo dhanka maartay deegaaminta hagaag mudane xilibaan saan oo la socono xiriyaha qaxootiga Dhadhaab waxa tahay shakhsi ku soo waxbartay kuna barbaaray duruufaha iyo gaajada ka jirto xiriyahan la socdo hadii aad kursigan hesho oo dawladda federaalka Soomaaliya ka mid noqoto xilibaanada haddii ay ku imaadaan qof shakhsiyaad ka mid ah dhalinyarada oo ku soo waxbartay xiriyaha ama ha noqdaan kuwa isku fasalaad tahaydeen ama kuwa isla shaqeysan ay ku dhahan waxa u baahan shaqo maxaad sameyn lahayd maxaana kula habboonaan lahaa inaad sameysid wallahi waa su'aal aad u fiican oo maartay aan rajaynayo inaad waqtigii ku habboon ay weydiisay ana jeclahay insha Allah raxmaan inaan si fiican kaaga jawaabo su'aashaas horta dhalinyarada aan iskula soo barbaarnay xarooyinka Dhadhaab duruufo adag aan isla soo marnay heerka waxbarasho primary oo asaasiga ah secondary college mise jaamacad inta waa isla soo marnay mise aan wada shaqeynay oo aan maartay goobihii aan ka shaqeynay iskala shaqeynay haddii anigoo xilkan ku fadhiya oo booskan Ilaahay intuu ii calfo ku guuleysta xildhibaan Soomaaliyeed ah haday ii yimaadaan waxay ila mid noqon doonaan dhalinyarada kale ee walaaladeyda ah nin aan iskula soo barbaarnay mise gabar aan iskula soo barbaarnay xarooyinka Dhadhaab wuxuu ila mid yahay mid aniga ila dhashay waayo duruufo adag aan isla soo marnay xilli adag aan isla soo qaadanay marka sidii aan u soo dhaweynayo qofka walaalkayga ah baan ayagana aan u soo dhaweysanayaa wixii aan u agoodo aan oo la qabanaya wixii aan la raadiyo ay noqdaan waan la raadinaa insha Allah raxmaan waa tahay daawadayaal wali waxaan dhaxda ka jirnaa barnaamij gaar ah oo dadweynaha idinkaga imaanay xiriyaha qaxootiga Dhadhaab gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya barnaamijku waxa marti ku ah Siyaad Tabane Aadan oo musharax u taagan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya isla markaas hadda haatan ku sugan xiriyaha qaxootiga Dhadhaab ahna shakhsi ku soo waxbartay xiriyaha ee qaxootiga Dhadhaab gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya mudane su'aasha xigta ayaa waxay tahay lagama yaabaa inaad guriga hoos ka soo xirto hadii aad kursiga asaga ku guuleysato maadaama qaar ka mid ah beesha ay ku tashanayaan maya ma laga yaabo hadduu alla idmo gurigeyga wuxuu noqon doonaa mid u furan Soomaali idilkeeda qaas ahaan beeshayda ayaan maartay aan xilka u qaban doono insha Allah waa tahay mudane 4.5 ma 4.5 maxaad ka aaminsan tahay adiga ku dhacday walaalo hortay agood qodobsiga Soomaaliyeed ay ku salaysan maartay 4.5 aniga ka shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay inuu yahay wax xaraan ah xalna ma ahan xaraanan aaminsanahay waayo waxaan ognahay in qabaa'ilo badan oo Soomaaliyeed lagu baxdilay qabaa'ilo badan oo Soomaaliyeed xuquuqtooda lagu doodsiiyay qabaa'ilo badan oo Soomaaliyeed maartay ay xaquuq wax u lahaayeen ee wadanka ay xaquuq oo lahaayeen ay ku waayeen 4.5 daradeeda marka aniga ka Siyaad ahaan waxaan aaminsanahay awood qaybsiga 4.5 ku salaysan inuu yahay xaraan xalna aan Soomaali u noqonayn inta 4.5 jirana aan wanaag Soomaali aysan gaarin sababtoo ah waa shay dulmi ah dulmi waay marka ma aaminsani 4.5 inay tahay xal dad badan waxay u arkeen inay maartay ay xal tahay laakiin aniga ma qabo fikirkaas waa shay xaraan ah Soomaalida si sinaan ah oo cadaalad ay ku jirto
walaalnimo ay ku jirto islaamnimo ay ku jirto in wax loogu qeybiyaan qaba amaasanta waa tahay mudane maadaama aad tahay shakhsi xiriiq qaxooti kusoo waxbartay kusoona barbaaray bal maxaad kala socotaa xaaladda guud ee iminka dalku maray bal wax nooga tataaba walaal horta amaasantahay su-aashaas inay weydiiso walow saa u sheegtaba aniga aan ahay shakhsi kusoo barbaaray xerooyinka Dadaab 29 sano u dambeeyay halkaas aan joogay anigoo cunug yar u daa ah halkaas imaaday maasha Allah waan ku barbaaray wax baan ku bartay waan ku guursaday caruur baan ku dhalay shaqaan ka helay maasha Allah laakiin xaaladda hadda aan wadanka uu ku jiro haddan aan hadlayno horta ilaahay waxaan marka hore uga rajaynayaa inuu bedel qeyr qabo u keeno oo isbedel qeyr qaba ilaahay uu maarta wadanka u keeno oo nabad iyo amni iyo horumar waaraha ilaahay uu soo dedejiyo insha Allah rahmaan waxaan jeclaan lahaa walaalo horta wadanka hadda waxa ka jira maarta xuleys far badan waxa ka jira maarta isfaham far badan waxa ka jira maarta khilaaf waxa ka jira maarta in dawlad goboleedadii inta kamid ah iyo maarta in dawladii sare in dhaxdeeda uu ka jira maarta ismarin waa iyo isfahan la'aan far badan marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa insha Allah rahmaan inuu maarta dadkan qulubtooda marka hore ilaahay isku soo dhaweeyo oo dad isjecel oo ilaahay ka dhigo oo maarta in ilaahay uu soo dumo oo jecel walaalnimo Soomaalinimo islaamnimo wadaniyad maarta ku salaysan inuu ilaahay uu soo hadiyeen ilaahay xaqiisa oo rajeynaa insha Allah rahmaan marka waxaan leeyahay ilaahiyo Soomaali dhaxdeeda wanaag dhig oo alana waxaan ka rajeynaa insha Allah rahmaan qabyaaladan oo shaydaanka u macaaniyay Soomaaliya oo ummadda Soomaaliyeed u qurqurxiyay naceebka iyo cuqdada waxaan leeyahay waxaan rajeynayaa inuu Allah ka dhax saaro walaalo xaaladda wadanka hadda uu ku jiro ma ahan wax maartay qof ka uu jeclaysan karo run ahaantii da'yartana uma fiicno waayo wuxuu ku keenayaa maartay niyad waxay maartay mugdisi gelinaysaa maartay mustaqbalka da'yarta Soomaaliyeed kuwa qurbo joogta ah kuwa maartay daafaha adduunka qaxootiga ku ah kuwa maxaabiista ku ah daafaha adduunka inta marka wadanka saa u sii fiirso niyad badan maartay dhalinyarada iyo da'yarta uu ku keenayaa marxaladda hadda wadanka uu ku jiro waxaan jeclaan lahaa inaan maartay ilaahay uga rajiyo Soomaaliya in uu maartay mustaqbal wanaagsan mustaqbal ifaaya mustaqbal maartay ay dadka dhan ay maartay ay ku wada qanacsan yihiin inuu ilaahay sida hadda ay tahay ugu bedelo insha Allah Allah rahmaan nabad waarto mudane su'aasheed dambe waxay tahay muxuu yahay fariinta u dirayso ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka meel walba ku jiraan isla markaas ku taabanayaan walaalo waa maasan tahay su'aal qiimo badan waaye fariinta message-ka aan rabo inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dunida daafaheeda waxaa kamid ah maartay marka koowaad inaan u diro baaq Soomaaliya meel walba ay dunida daafaheeda ka joogto waxaan leeyahay Soomaaliyay meel walba dunida daafaheeda ka joogtaan dhaqankii suubanaa ee Soomaalinimada ku saleysnaa ee dhaqanka Islaamka ku saleysnaa ee dhaqanka walaalnimada ku saleysnaa ee dhaqanka isjecelka ku saleysnaa ee dhaqanka maartay is-ixtiraamka iyo kala dambeynta ku saleysnaa in dib loogu noqtaan qabaa oo Soomaalinimada la soo celiyo wadaniyadnimada la soo celiyo maartay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed hadii jeer laga shaqeeyo taas mar walba aan ku baaqay sidoo kale siyaasiyiinta waxaan ugu baaqayaa inay joojiyaan kala qaybinta iyo kala geynta ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waa dad walaal ah waa dad isku luqad ah waa dad isku diin ah waa dad maartay culturally ay maartay dhaqan ahaanna ay hal dhaqan leeyihiin marka waxaan qabaa in maartay dhaqanka hadda jira ee ku saleysan fikirka ay maartay naceebka fikirka is-ixtiraam xumida fikirka maartay musuqmaasuqa fikirka maartay cadaalad darrada dulmiga waxaan qabaa in lagu bedelo fikir isjecel walaalnimo Soomaalinimo wadaniyad in lagu bedelaan maartay aan ugu baaqayaa Soomaali meel walba ay dunida afeed ka joogto kuwa tahay daawadayaal intaasi waxay nooga barnaamijka gaarka ah oo toddobaadkan idinkaga imaanaya xiriyaha qaxootiga Dadaab gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya barnaamijka waxaa soo saaray idin socodsiin anigoo ah walaalkiin Xasan Kaafi barnaamijkan barnaamij shan kulmi doona waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo